warsoo dhawaada wadayaal xaafadda islii ee magaalada nairobi maanta gebi ahaanba way xidhan tahay bulshadana waxaa loogu baaqay inay isku soo baxdo dukaamada iyo suuqyadana waxaa la faray oo lagu amray inaan la furin maanta dukaankii la furo waa cadowga ummadda soomaaliyeed iyo cadowga muslimiinta weeye bulshada dhammaan maanta waxay iskugu soo bixi doonaan wadooyinka waaweyn ee xaafadda islii ee magaalada nairobi arrintan ayaana daba joogto dhacdadii foosha xumayd argagaxa lahayd ee habeenkii isniintu ay soo gelaysay ka dhacday xaafadda islii ee magaalada nairobi 3 gabdhood isku qoys ah maamo ama hooyo gabadheedii iyo gabadhay eedada u ahayd 3diiba la afduubtay la dilay la kufsaday la jarjaray dhacdadaas argagaxa badan oo xaafadda islii si gaara weliba run ahaantii u taabanaysay ummadda muslimiinta iyo soomaaliba meel walba ay joogaanna quluubtooda gilgashay ayaana la doonayaa in la iskugu soo baxo dhacdadaasi sida looga xun yahay in laamaha amniga baaritaanada wada ama ay qusayso laga codsado oo bulshada kaamakuuji degan ama isliiba deganba ee soomaaliyeed ay ka codsadaan in dhacdadaasi halka ay ku habboon tahay la mariyo oo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta laga soo bogsiiyo oo dhagarqabayaashaasi la hor keeno ayuuna salka ku hayaa dibadbaxan maanta ka socdo xaafadda islii ee magaalada nairobi waan dul istaagi doonaa waxaan sidoo kaleeto iyadana eegi doonaa xogihii ugu dambeeyey ka soo kordhay kiiskaasi argagaxa badan ee nagu wada dhacay ee ummadda soomaaliyeed run ahaantii ku dhacay qoys dhan hal mar noloshoodii gabdho weliba soomaaliyeed guri ifaya nuuraya barwaaqaysan kas hal habeen mugdiga laga dhigay la laayay oo weliba laynba sameehee dhacda waxa way falxumadaad aragtay loo geystay waan dul istaagi doonaa waxyaabihii ka soo kordhay waxaan dhanka kaleeto iyadana ummadda soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago dalka kenya marxaladda hadda uu ku jiro soomaali badan baa laga yaabaa inaysan waru haynin oo waxbaba aysan waxa weeye aysan warbaahinta iyo aysan la soconinba xaalka dalka kenya maanta uu marahayo xaalad aada iyo aada u adag ayuu dalka kenya maanta ku jiraa xilli kale guura ayaa lagu jiraa iyadana ummadda soomaaliyeed waan u sharaxaynaa hadduu aan la idmo waxaan dhanka kaleeto iyadana xusuusinayaa inay bulshada soomaaliyeed isjiraan weliba khaasatan dumarka hadda ugu sii daranba inay is ogaadaan isla socdaan sababtoo ah xildhibaano mca-yo deegaankoodii jooga ayaaba waxa weye intii la qabto la afduubaa la jarjaray marka gabadh xaggay joogtaa way kasii xag jirtaa waxaa loo baahan yahay marka in la isjiro oo la is ogaado iyadana fariin baan ummadda soomaaliyeed iyo tusaalooyin badan ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhacdo argagax badan aada iyo aada u argagax badan ayay ahayd dhacdadan hadda taagan ee ka dhacday xaafadda islii ee magaalada nairobi soo dhawaada muuqaalka like saara una soo duceeya eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen gabdhahaasi iyo gurigii sida noocaa loo galay ilaahay inuu samir iyo iimaan uu ka siiyay iyagana janatulfardows oo gacan ka xaq daran ayaa kolley dishay aynu ku bilownaya inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto naxariistii janno ilaahay ha siiyo gacan ka xaq daran baa dishay iyagu waxa weeye waa shahiid waxba iyagoo galabsanin cidnay duulaan ku ahayn hooyo soomaaliyeed iyo gabdhaheedii xataa aan isla soconin intiinii kiiskan aragtay la socotay wayba la socotay intaan la soconina xogahooda waan ka dabageyn doonaayo ayaa weliba dilba sameehee noocyo fara badan baa loo dilay siyaabo kala duwan baa loo dilay si walboo loo dilayba laakiin hal meel unbaa la tegi maanta iyagu xaqiiqadii adduunyadii iyo kadeedkeedii iyo waxeedii waa oga dhammaatay janatulfardowso ayaana rajaynayaa inay ku raaxaysanayaan gabdhahan soomaaliyeed ee la laayay waa hooyo gabadheedii iyo gabadha eedada wahay hooyada weris baa la yidhaahdaa isbitaal bay aaday xilli habeennimay baxday habeenkii isniintu ay soo gelaysay bay isbitaal aaday kolley waad aragteen muuqaalkii lasoo bandhigay baraha bulshada ayuu cid walba ay kala socotay anigu ka ahaantayda weliba aada iyo aada waxaan u daba wareegahayay dadkii ay qusaysay iyo meelihii wax laga raadinayay iyo dadka halkaa unbaaba ku mashquulsanaaba marka ma soo qaadaninoo muuqaalka ma soo qaadaninoo cadaymaha intay kasoo dhamaystirmayaan xaaladdu ay kasoo dhamaystirmayso waxa weeye waxba murugo ummadda soomaaliyeed ha usii kordhinin baan anigu ahaantayda iska dhaadhiciyey
hadda xoga hordhacaa la helayaa hooyooyinkan iyo gabdhahan la laayeyna waa hal faamal weeye. hooyadaa markii hore baxday oo aaday isbitaalka, xoogaa markay maqnayd gabdhihii baa wacay, niman baa ka qabtay. nimanka ka qabtayna waxay dheheen aad bay u xanuunsan tahay hooyadiine, maamadu imaada bay dheheen. islamay soconin, isku gaari mayn qaadanin, isku waqti may bixin, waa waqti aad u kala fog bay bixeen. gabadhii maamadii weyneyd sidaa markii la yidhi telefoonka qolaa haysata, gabdhihii way baxeen. gabdhihii baxay xilligii baa iyagana guriga ugu duwardambaysay. dhacdadan markaad eegto oo aad qiimayso, waxaad moodaa dhacdo laga soo shaqeeyey oo weliba dad aad iyo aad iskugu yaqaana gabdhahan iyo maamadan iyo waxan in laga soo shaqeeyey ayaad moodaa. baaritaanadan socdo laakiin ka hor dhici mayno. arrintan laakiin waxay u badan tahay arrin laga soo shaqeeyey oo weliba dadkan aan ka dheeraynba ay ka shaqeeyeen bay horta u muuqataa, sida hadda ay wax u dhaceen iyo baaritaanadii iyo askarta xataa naftarkeeda markaa weydiisa iyo xoogaa aad weydiiso waxay ku dhahayaan arrintan dad badan bay lagu halageli doontaa. baaritaanada socdooda horta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ciday doontaba ha noqotee ama soomaali ha noqote ama madow ha noqotee ilaahay inuu horta uu soo qabto ayaan horta rajaynaynaa, allah ka baryaynaa. wariya xaal gabdhihii iyo hooyadiiba sidii baa lagu waayey, tabti baa lagu waayey. habeen kadib, weliba habeen hore ayaa waxaa lagu soo tuuray mid meydkeeda, waxaa lagu soo tuuray meesha la yidhaha Puntland, iyadoo weliba jarjaran googo-an baa lagu soo tuuray oo nooc walba loo geystay, wax walba. midna waxaa lagu soo tuuray section 3 dusheeda, xaafada oo aan ka dheerayn baa lagu soo tuuray. midna Machakos baa lagu tuuray, midba meel baa gabdhihii lagu tuuray. tii la haystay oo si la raba laga yeelay baa hantii la dilay baa haddana la jarjaray. waayahana arrintaa ku darsada Soomaaliyeed wayba socotaaba. MCA dhan oo wajeer laga soo dooranay baa intii sidaa loo afduubtay baa weliba markuu toddobaadyo hadda maqnaa baa isagoo jarjaran, isa dhowr toddobaad ku dhawaad buu maqnaa, isagoo jarjaran oo xubin walba xubin loo jaray baa meeshii laga soo dooranaya dusheeda laga helay. waa dhul Soomaaliyeed, madow ma degana, cid degan ma jirto, waa Soomaali basaa degan. marka arrintan arrin waayahan ba socoto weeye, in intii qofka la qabto, la afduubto, la jarjaro, la dilo, arrin socoto weeye. ama Soomaali ha geysato ama madow ha geysto, iyadoo hadda kala sheegi mayno, dhihi mayno adoon baa geysatay ama madow baa geystay ama hebel baa geystay, dhihi mayno, ku dambaabi mayno. laakiin waa arrin socoto weeye. waa isla wiig gudihii qofkii afraad oo Soomaaliya weeye, weliba haddana mas-uul ah oo xil haya kuwa waxa weeye waaba shacbi. marka arrin socoto weeye. dad baa waxay arkay leeyihiin waa kuukiye iyo kuukiyadan hadda xilka laga tuuray iyo waxaasoo dhan. waxaa jira waxyaabo kaleeto oo uga dhowaan kara baa laga yaabaa inay jiraan. kuukiyadu naftirkeedu ma shar yara oo dalku dee waxa weeye kuukiye ba sameeyay, dalku hadda waa kala qaybsan yahay siyaasad ahaan, oo labadii mas-uuliye ugu sarreeyay baa isku haystay waayo ugu dambeeyay dalku u qasnaa. marka kuwa kaleeto oo taageero oo kuukiyaba ahayn baa samayn kara oo falkan geysan kara, kuwa Soomaaliya geysan kara, ehelisay qaraabays haysto dad oo ehel oo gabdhaha yihiin baa ya geysan kara. cid walba marka geysan karta, laakiin waa dhacdo murugo badan, waa dhacdo argagax badan. culimada diinka iyo business community iyo isxaafada isli iyo MPga laga soo doortay Kamakuji xaafada isli Soomaaliga iyo Yusuf Xasan iyo sidoo kale mas-uuliintii Kamakuji odayaashii iyo dhaqankii shalay waa la shiray, waxaana lagu heshiiyey in berito oo maantadana dibadbax la dhigo, xaafada isli la xiro dukaamadeeda iyo ganacsiga gabi ahaanba la xiro. maalin baroor diiqa cabasha dowladda cabashadeena u gudbinayna aan samaysano. wadada weyn ee First Avenue ay dhahaan halbowlaha bartamaha xaafada isli kala qaybisa wadooyinka kaleba la iskugu soo baxo, halkaasi lagu kala warqaato, waxa weeye warbaahinta loo soo bandhigo, dareenkeena aan muujino, si markaasi laamaha amnigana ay dhiirigelin ugu noqoto inay ay dardar xoogle ay geliyaan ama dadaal xoogle ay geliyaan sidii baaritaanadooda ay usii wadi lahayn, loo soo qaban lahaana gacan ku dhiiglayaashan dhagarqabayaasha ee dhibaatadaasi geystay. maaha markii ugu horreysay oo xaafada isli ama Nairobi gudaheeda ay arrintan oo kale ka dhacdo. gabar Soomaaliyeed ba hadda ka hor sidaas lamid ah loo afduubto ilaa 3 waxa weeye toddobaad in ka badan laamaha ay ku daba jireen, ugu dambeyn dee gacanta lagu soo dhigay. marka
hay-adda sirdoonka ee dalka Kenya haddii ay guda gasho oo arrintaas ay lagu dhiirigeliyo oo la daba istaago waxaa maybe inay inta badan lasoo qabto oo gacanka dhujiyaashaas walow kuwa badan horena aan lasoo qaban xilligii maxamed cabdullaahi farmaajo waxaad ogsooneydeen nin ganacsada ahaay oo milyaneer ahaay oo dhalinyaro ahaay oo qadaraysyo waaweyn dalka Kenya ka qaadan jiray in intii la dilay weliba meel lagu tuuro aan la helin oo sidaana kiiskiisii uu ku dhamaaday iyadana waa jirtay laakiin laabaha amnigu hadda dadaal xoogan bay bixinayaan sida mas'uuliyiintan ay u sheegeen innaga naftarkeenana dhaqaaqyada iyo aan ka aragno intaanada hadda Nairobi joogto aad iyo aad bay hadda u dadaalayaan waxaan rajaynaynaa inaan cadaalad heli doono oo aan dhagar qabayaashaasi ciday doonaanba ha noqdaane lasoo qaban doono muuqaalkii ugu dambeeyey ee la helay wuxuu ahaa muuqaalka gaadhigii ay fuulahayeen ee markaas isbitaalka hortiisa ahaa ayaa la helay mar haddii gaadhigii ugu horreeyey la helo oo taarikadiisa la helana dee waxaan rajaynayaa inay raadraac fiican oo loo dabagalo in ay leedahay haddii aysan dalka aysan markaasi ka bixin waynu eegi doonaa waxaa kale sidaa wada ogsoontihiinba dalku khilaaf siyaasadeed ayuu ku jiray dhowrkii bilood ee ugu dambeysayba xukuumaddiiba marbaaba dowladdu ay dumi gaadhayba oo afka ciidda loo daray gaadhay khilaaf xoogan markii uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Rigathi Gachagua oo markaasi ay si adag isku qabteen labadan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa isjiid dheer kadib waa kii asbuucan gudihiisa afka ciida loo daray madaxweyne ku-xigeenkii xilkii laga xayuubiyey baarlamaanku ay u codeeyeen weliba baarlamaanka xildhibaanadii ugu badnaa ay kalsoonidii kala laabteen halka sanadkiina iyagana ay ku raaceen xildhibaanada oo afka ciida loo daray marka dalku wuxuu ku jiraa marka khilaaf siyaasadeed oo xoogan buu kusoo jiray dhowrka bilood ugu dambeysay ilaa haddana dalku weli ma degin xaalad adag buu ku jiraa waa khilaafka labadaasi mas-uuliyad ugu sarreysa u malaynina labadooda keliya ciidanku waxa way kala qaybin karaa siyaasiyiintu kala qaybinaya shacabku kala qaybinaya labada nin cod bay kusoo baxeen oo shacab baa usoo codeeyey marka aragti ahaan iyo siyaasad ahaanna dee iyadoo ciidanku ciidan yahay oo sirdoon yahay oo askartu askar tahay oo dowladdu dowlad tahay hal dowladu tahay oo hal system tahay haddanana siyaasad ahaan dee labada nin waxa weeye inay kala taageeraan waa wax iska nature oo caadi ahoo adduunkaba ka dhaca weye marka wadanku marka marxalad adag oo noocaas ayuu ku jiraa bulshada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay islaaliso marka intentionkaadu uu taagnaado inaad islaaliso gaariga aad raacayso halka aad aadayso cidda kula socota kulay ilaahay dilo ayaa dhinto lama ilaalin karo qofku meeshuu ku dhimanaya Allah garanaya sida uu dhimanaya ilaahay baa garanaya laakiin taxaddar badan aan muujino taxaddar badan waa inaan muujino marxaladda hadda dalkan Kenya uu ku jiro waa marxalad aad u adag weeye laabaha hadda gacanta ku ay kiiska baaritaano fiican bay wadaan oo dadaal bay muujinayaan laakiin waa in niyadaada ay ku jirto in dalku khilaaf siyaasadeed uu ku jiro welina uusan degin oo la dejinin weli aan la dejinin sababtoo hadda ninkan kursiga laga tuuray madaxweyne ku-xigeenka saaxiib buu lahaa golaha wasiirada laga yaaba qaybo inuu kala shaqeynayo walow la bedelayba waana weli la daadiyey golihii wasiirada oo wasiiro cusub la dhisay waxaa laga yaabaa inuu waxa weeye ciidamada taliyaal badan oo isaga saaxiib la ay jiraan kuwa badan waxaa laga yaabaa askarta ay jiraan kuwa badan waxaa laga yaabaa inuu la shaqeynayo hoose oo kii kala oo ayaga naftirkooda jiniyamaji oo hawlahan oo kale tafuliya inuu la shaqeynayo laga yaabaa marka dowladdu hadday marka waxay wadaa shaandhayn kala hufid bay wadaa oo Ruto maadaama ninkan uu banaanka u saaray wixii xarkihii waa la furfurayaa xarkaha inta la furfurayo halis badan baa la geli karaa mana aha inaga bas hadda dhacdadan waxay ku dhacday dad badan oo Kenyana jaasaas oo kale gabdhahoodii inta loo qaatay oo meedun banaanka lagu soo tuuray ilaa iyo 5 iyo 6 case ayaa waxa weeye adeecadaha dalku ay soo bandhigayeen asbuuciyadii ugu dambeeyay marka waa wax taagan weeye marka marxaladda waqtigan oo kale to marka taagan waa in inagu marka aan feejignaano weey waa inaan feejignaano waliba waxaan baaq gaar u diray gabdhaha Soomaaliyeed boltiga iska ilaaliya oo ubaradan iyo waxa la raacayo dhan iska ilaaliya qofka aad qaadanaysaan ha noqdo qof Soomaaliya aad taqaanaan lambarkiisa telefonkiisa halka uu joogo waxa weeye aqoon u leedahay wada wiilasha Soomaaliyeed ba aad u badan oo isli hadda kule gawaarida waxa weeye tagaasilayda la hoba jira oo aad u fara badan fiican oo balwad xataa aan lahayn marka dadkaas intii marka la qaadan kara hal badiyo insha Allah taala oo waxa weeye ayaga hal isticmaalo badalkii gaari walba la iska dalban lahaa ama Uber ama Bolt ama Faras la iska gashan lahaa qof meel ka imaado garanaynin
oo markaasi horay kuusii dafi lahaa arrintaana waa degniin bulshada soomaaliyeed ha isgaarsiisa insha allahu tacaala waxaan rajeynaya ilahay ka rajeynaya in cid walba oo dulmiga noocan oo kaleeto abaabulaysa ama ka dambeysayba kan hadda dhacay ama ku kaleeto ku howlan ilahay inuu ummadda ka qabto ilahayna intaas ha nagaga ekeeyo dhibaato ka weyn oo nagu soo food lahayd hadday jirtana ilaahay halkaasi ha nagaga ekeeyo kuwan hadda dhintayna ilahay jannatul firdaws ha geeyo ehladii iyo qaraabadii ay ka tageen samir iyo iimaan ilaahay ha siiyo xaafadda islii dibadaxan maanta ka socdo qayb ayaan ka nahay life ayaana isku daynaa inaan usoo tabin doono oo bulshada soomaaliyeed aan aragtiyahooda weliba aan soo weydiin doono hadduu aan laydmo nala socda anigoo santaag ayaan inala socodsiin doono halkaad naga daawanaysaan waa warsame t v iyo warsame media oo qeybta youtube-ka facebooka alaaba waxaad naga heli kartaan warsame t v qeybta youtube-kana waa warsame media waa youtube-ka warsame t v-na waa pageka facebooka gabdhaha soomaaliyeed ee walaalaheena xaafadaa dhan mugdiga laga dhigay insha allahu tacala waxaan rajeynayna wixii hadda ka dambeeya inaan qeyb weyn ka qaadano oo inaga naftirkeena waajibaad inaga saarana in aan soo gudbino xog walba oo kasoo kordho waxaa kaleeto oon isku dayi doona hadduu allaydmo inaan meelaha ay qusayso oo markaasi xogaha ugu muhiimsan laga heli karo inaan toos u aado oo markaasi aan iisoo gudbiyo wixii oo kasoo kordho haddii allaydmo